Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada warka Samareeb TV qodobada warka Samareeb TV ugu door koronaya waxaa ka mid ah beesha caalamka oo qoys ka taagan wada hadallada shanta maamul goboleed iyo dowladda Soomaaliya Roble oo ku ballan furay wakiilada beesha caalamka iyo carar ka dhalatay saddexda xildhibaan ee mursal ka dhaadhiciyay inuu ka laabto go'aankii uu ka qaatay 15 xildhibaan Kenya oo dowladda federaalka u jeedisay eedeyn yaab leh oo la xiriirta weerarkii ceel cadde dowladda federaalka Soomaaliya oo si qarsoodi ah ciidan ugu qoraysa Somaliland Puntland digniin culus u dirtay shaqaalaha qaramada midoobay qodobada kale dibadda ayaa waxaa ka mid ah dalka Faransiiska oo bandow saddexaad galay Al-Sisi oo ka digay xasilooni darro aysan cidna qiyaasi karin daawadayadan ugu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar gambalkan fursi si aad u heshid wararkii ugu dambeeyay halka aynu soo dhigno waa maalinimo khamiis taariikhda ay ku beegan tahay kowda bisha April 2021 kun soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystiran xubnaha beesha caalamka ayaa laga soo xigtay in ay ka daaleen oo kala dabqaadida hogaamiyaasha Soomaalida iyaga oo taagan halkii ugu dambeysay oo ay go'aankooda kama dambaysta ah ugu gudbin lahaayeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay si ay qaraar uga qaataan arrimaha Soomaaliya fadhiyadii ugu dambeeyay ee Kenya Jabeen ayaa ahaa kii ay la qaateen dhinacyada xukuumadda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland beesha caalamka oo kulamo la qaadatay dhinacyo ka baxsan hogaamiyaasha Soomaalida ayaa sheegtay in markii ay ra'iisul wasaare Roble la kulmeen ay ka dalbadeen in uu kulan la qaato shanta maamul goboleed isla markaana ay isla dejiyaan ajendayaasha ka hor gudban furitaanka shirka ra'iisul wasaare Roble oo ka aqbalay arintaas ayay u tageen Saciid Deni iyo Axmed Madoobe waxaana ay Axmed Madoobe iyo Deni aqbaleen in kulanka Roble gudoominayo uu dhaco si ajendayaasha la islu maligo beesha caalamka ayaa isla goobtii ay kula shirayeen labada hogaamiye ee Puntland iyo Jubbaland fariin ugu diray Prime Ministerka una sheegay in labada mas'uul ay arintaas aqbaleen oo ay tahay in shir beesha caalamka qayb ka tahay uu dhaxmaro shanta madaxweyne iyo ra'iisul wasaaraha sida ay beesha caalamku u sheegtay dadkii ay la kulmay ra'iisul wasaare Roble waa uu aqbalay shirkaasi balse saacado kadib ayuu fariin u diray beesha caalamka isagoo ku yiri aniga oo kaliya isu kaydaya shirkiina maanta ma qabsoomin waxaa kale oo la sheegayaa in saddexda madaxweyne ee Galmudug Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed u gudbiyeen beesha caalamka in ay arintii dhaxaadinta gacanta ka taagteen waxa kaliya oo haddii aan toddobaadkan shirku furmin ay tahay in beesha caalamku ay golaha ammaanka u gudbiso in ay ku adkaatay heshiiskii lagu gaari lahaa nidaamka doorashada kadibna golaha ammaanka uu qaraar ka qaato arrimaha Soomaaliya sida wararku sheegayaan maanta ayaa golaha ammaanku ergadooda arrimaha Soomaaliya warbixin ku saabsan arrimaha hortaagan doorashadii la filayay in ay dalka ka dhacdo waxa ay beesha caalamku ku soo horjeedaan in la sameeyo doorasho hal dhinaca mid isbarbarayaaca iyo muddo kororsi warar aan helnay ayaa sheegaya in gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ka noqday go'aankii uu 15 xildhibaan ugu mamnuucay muddo 5 fadhiya in ay ka soo qayb galaan taas oo abuurtay buuq iyo jahwareer soo wajahay golaha xildhibaanadan waxay buuq ka sameeyeen kulan ay sabtidii toddobaadkan ay yeelan lahaayeen xildhibaanada golaha shacabka waxayna diidayeen in muddo kordhin loo sameeyo madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xildhibaanadan oo ah kuwa mucaaradka ah ayaa shalay laga hor istaagay inay ka qayb galaan kulan ay yeesheen xildhibaanada golaha shacabka ee waqtigu ka dhamaaday kaas oo lagu ansixiyay laba xubnood warbixin looga dhageystay wasiirka caafimaadka ciidamo ka tirsan dowladda oo wata gaadiidka gaashaaman ayaa shalay la soo dhoobay baraha kontarool ee laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya iyo qaar ka mid ah isgoysyada Muqdisho kuwaas oo xildhibaanadan u diiday inay gaaraan xarunta golaha shacabka xildhibaano uu hogaaminayo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe qaybna ay ka ahaayeen wasiirkii hore ee warfaafinta xildhibaan Maxamed Maareeye iyo wasiirkii hore ee howlaha guud xildhibaan Abdifataax Geesi ayaa habeen hore gudoonka ka dalbaday in afis u fidiyo 15 xildhibaan laga ganaaxay fadhiyada golaha xogta aan helnay waxay sheegaysaa in xildhibaanadan ay ka soo qayb gali doonaan fadhiga u horeeya ee sabtida dhacaya sidoo kale gudoonka ayaa xildhibaanadii u tagay ku wargeliyay in haddii uu muddo kororsi jiro uu noqon doono ajande waadaxa golahana la horkeeni doono si ay ugu doodaan oo aysan jirin wax la qarin doono
sida darteedna aan buuq loo baahnayn. Kenya ayaa ku eedeysay hay'adaha amniga Soomaaliya inay ogaayeen weerarkii Al-Shabaab ay 15 Janwari 2016 ku qaaday saldhigga ciidamada Kenya ee deegaanka Ceel Cadde ee gobolka Gedo, halkaas oo lagu dilay 150 askari oo Kenyaan ah, sida uu qoray wargeyska Daily Nation. Eedeynta yaabka leh ayay Kenya ku sheegtay dukumentiyada ay u gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ICJ ee la xiriira kiiska dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya ay isku dayeyso inay boobto. Kenya ayaa sheegtay in warbixino sirdoon ah oo aan la isku halayn karin cadaawad ay dadka deegaanka u qabeen ciidamada Kenya iyo xiriirka AMISOM dhexdeeda ah oo aad u xun u horseeday khasaare xooggan oo ciidankeeda soo gaaray. Hase yeeshee ayay tiri Kenya, arrinta ugu walaaca badan ayaa ah in koox ka tirsan sirdoonka Soomaaliya ay ka warhayeen weerarka ku soo socday ee lagu beegsanayay Kenya. Ilwareed ka tirsan sirdoonka Soomaaliya ayaa u sheegay kooxda qaramada midoobay ee kormeerka cunaqabataynta hubka ee Soomaaliya ee UN Monitoring Group inay ka warhayeen in dagaalyahanada Al-Shabaab ay isku soo urursanayaan meel u dhow Ceel Cadde, inkastoo aan la ogeyn bartilmaameedkooda dhabta ah. Waxayna ku wargeliyeen dhigooda Kenya, ayaa lagu yiri warbixinta. Si kastaba, kadib weerarka ciidamada Kenya way beeniyeen in loo digay, ayay tiri warbixinta. Kenya ayaa sidoo kale eedeyn u jeedisay dadka deegaanka oo ka soo jeeda beesha Mareexaan, iyada oo sheegtay xiriir la'aantooda ay sabab u ahayd inaysan xog badan helin, sababtuna ay tahay in Kenyaanka u arkeen cadow taageeriga beesha ogaadeen ee ishaya, sida lagu sheegay warbixinta. Sheegashada Kenya ayaan loo hayn wax cadeyma, waana qayb ka mid ah difaacooda kiiska dacwadda badda ee dadka aadka looga yaabay oo muujinaya in Kenya aysan haysan wax dood sharci ah oo ay ku boobto badda Soomaaliya. Ilo wareedyo ka tirsan dadka deegaanka iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda Soomaaliya ay ciidan ku qorayso deegaano ka tirsan Somaliland. Wararkan oo aad loo qariyay ayaa ka helnay ilo ka tirsan odayaasha deegaanka ee ku nool magaalooyinka Laascaanood iyo Ceergaabo. Waxaa sidoo kale nolol xaqiijiyay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka. Tirada ciidanka oo aan si rasmi ah loo haynin ayaa la sheegay in la qoray 2 jeer oo markiiba ah la qoray ciidan ay 400 ilaa 500 askari. Bilowgii ciidankan la qoray ayaa ka mid noqday kumanaanka askari ee loo qaaday dalka Eritrea, halka bilo ka horna la qoray kuwa kale oo aan la sheegin halka la geeyay. Waxaase la xaqiijiyay in loo qortay ciidamada dhalinyarada tababarka loo qaaday ayaa qaarkood la sheegay in lagu tababaro meelo kale oo ka mid ah gobolada dalka, halka qaar kalena loo qaado dalka dibadiisa. Lama oga in loo tababarayo qalalaase laga abuuro Somaliland iyo in loo qortay ka mid noqoshada ciidanka dowladda Soomaaliya. Hase yeeshee odayaasha deegaanka ayaa sheegay inay walaac ka qabaan. Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaanahan waxay si hoose ula macaamilaysay dadka ka soo jeeda qabaa'ilada aan awood badan ku lahayn Somaliland iyo Puntland ee tabashooyinka qaba, waxaana dhowaan ay Puntland ku eedeysay dowladda federaalka inay hurisay qalalaase ka dhacay deegaanka Dahar. Dowlad goboleedka Puntland ayaa digniin adag u diray shaqaalaha qaramada midoobay ee ku sugan deegaanadeeda, kuwaasi oo qaarkood ay diideen inay bixiyaan canshuurtii sida uu sheegay xeerlaalinta Puntland. Maxamed Xareed Faarax, xeerlaaliye ku-xigeenka Puntland oo arrintaasi ka hadlay, ayaa sheegay inay jiraan 4 qof oo ka mid ah howlwadeennada UN-ka oo diiday bixinta canshuurta ay ku waajibisay dowlad goboleedka Puntland, isla markaana laga qaadi doono tallaabo sharci ah. Xeerlaaliye ku-xigeenka ayaa ku hanjabay in xubnahaas ay maxkamad horgeyn doonaan haddii ay canshuurta ku bixin waayaan kama dambeyn 3 bisha afraad 2021. sidoo kalena waxa uu xusay inay jiraan 5 xubnood oo kale oo iyaguna aan weli bixin canshuurta oo ka tirsan UN-ka. 4 xubnood ee ay dowlad goboleedka Puntland ay sheegtay inay degdeg u bixiyaan canshuurtooda ayaa waxay ku kala sheegtay magacyadooda Cabdinuur Xasan Axmed, Xirsi Xuseen Nuur, Maxamed Cabdullaahi Faarax, Nuurdiin Saciid Maxamed. dhammaantoodna waxay u shaqeeyaan hay-adda WHO oo ka mid ah hay-adaha waaweyn ee UN-ka. Ma ahan markii ugu horeysay ee maamulka Puntland uu soo bandhigo magacyada xubno ka howlgala hay-adaha UN-ka oo ay ka dalbanayaan
inay bixiyaan canshuurta waxayna dhowr jeer oo hore xiriirlinta Puntland baahisay magacyada shaqaale ay sheegtay inaysan bixin canshuurta. Si kastaba shaqaalaha uu maamulka digniinta u dirtay ayaa badankood waxay ka howlgalaan oo ay ku sugan yihiin gobolada Bari iyo Mudug waxayna isugu jiraan ajaanib iyo Soomaali ka wada howlgala hay'adaha qaramada midoobay. War-saxaafadeed ka soo baxay Jubbaland iyo Puntland waxay sheegeen in madaxda sare ee dowladda federaalka ay xagal daacinayaan wadahadallada doorashada. Hadalka ka soo yeeray Jubbaland iyo Puntland ayaa u muuqda in ay ka quusteen madaxweyne Farmaajo. Madaxweynaha Masar ayaa Talaadii sheegay in saamiga dalkiisa uu ku leeyahay biyaha webiga Nile uu yahay lama taabtaan isaga oo diray digniin cad oo u muuqata inay ku socoto Ethiopia oo biyo xireen ka sameynaysa webiga Nile. Hadalka madaxweyne Cabdilfataax al-Siisi ayaa imaanaya iyadoo weli isku mar la'yahay wadahadallada sanadaha socda ee ku aadan biyo xireenka Nile kuwaasi oo sidoo kale ay ku lug leedahay Suudaan. Shir jaraa'id oo uu qabtay ayuu al-Siisi kaga digay xasilooni daro aysan cidna qiyaasi karin oo ka dhacda gobolka haddii biyo xireenka Nile la buuxiyo lana howlgeliyo heshiis la'aan. Ma jirto cid hal dhibic oo biyo ah ka qaadan karta Masar. Cid kasta oo doonaysa inay isku daydaan ha isku daydo ayuu yiri, cidna ma qiyaasayso inay ka fog tahay awoodaheena. Al-Siisi kuma magacaabin Ethiopia hadaladiisa oo ahaa kuwa ugu xooganaa ee mas'uul Masar ah uu ku jeediyo muranka biyo xireenka muddo sanada ah. Waan ka celinaynaa biyaha Masar waa lama taabtaan tabashadooda waa qad cas ayuu yiri. Si kastaba al-Siisi waxa uu sheegay ahamiyadda dalkiisa ay tahay in wadaxaajo laga xaliyo muranka dabadheeraaday ka hor inta aysan Ethiopia sii wadin buuxinta biyo xireenka. Waxa uu intaasi ku daray in wareeg cusub oo wadahadallo ah la filayo toddobaadyada soo socda, hase yeeshee ma shaacin haddii ay wakiilo caalami ah ku lug leeyihiin. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa xayiraad hor leh ku soo rogay dalkaasi muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabanaysa Sabtida. Hadal uu ka jeediyay telefishinka ayuu madaxweynuhu go'aan ku shaaciyay waxaanu sheegay in la xiri doono suuqyada waaweyn iyo iskuuladaba. Waa markii saddexaad oo muddo 2 sano gudahood dalka Faransiiska xayiraado lagu soo rogo kadib markii cudurka safmarka uu saameyn ba'an u geystay dalkaasi. Madaxweyne Emmanuel Macron ayaa waxa uu sheegay in waxbarashada laga qaadan doono qaab online ah laga bilaabo isbuuca soo socda. Waxa uu sheegay inuu og yahay saameynta ka dhalan karta in isbeddello lagu sameeyo jadwalka waxbarashada, laakiin wuxuu sheegay inay tahay tallaabada keliya ee lagu damaanad qaadi karo badqabka caafimaadka ee carruurta. Madaxweyne Macron ayaa sidoo kale sheegay in la kordhiyay bandowgii saarnaa 16 deegaan oo Faransiiska kuwaas oo horaantii bishan laga helay kiisas badan oo cudurka COVID-19 ah. Dhammaan dukaamada aan muhiimka ahayn ayaa la xiri doonaa laga bilaabo Sabtida, waxaana la mamnuucay safarada wax ka badan 10 kiiloomitir ama 6 mayl haddii qofka uusan haysan sabab macquul ah. Waxa uuna madaxweynaha ugu baaqay shacabka Faransiiska inay wada shaqeyn yeeshaan si loola tacaalo cudurkan safmarka ee corona. Intaas ayaynu ku soo afmeerina warkii aad kala socoteen Samareeb TV. Intaan warkan war kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.